wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay arrimaha mudnaanta u leh dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka ee sanadka 2023. shirkan ayaa diiradda lagu saaray qorshaha ahmiyadda u leh dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya iyo hanaanka maaliyadda iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha gudaha dalka. waxaa ka soo qaybgalay wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe, gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, guddiga miisaaniyadda dhaqaalaha labada aqal ee baarlamaanka, guddiga dhaqaalaha qaranka iyo marti sharaf kala duwan. Sheekh Cali Wajiis oo kamid ah culimada Soomaaliyeed iyo Professor Yaxya Caamir ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan. marka arinta oo muhiimka waxay tahay in la gaaro marxalad dalkan oo higsado dakhliga yaro maanta 1 billion ka yar oo half billion xataa aan dhaafsiisnayn ka badanaa la awoodi karaa dalka in la gaarsiiyo 10-20 billion dollar inuu sanadka dambe iyo sanadku xig gaaro dakhligiisu. laakiin waa goorma waa markii inta khilaafka meel la iska dhigo xildhibaanadu ay dhulka inay aadaan iyo agaasimayaasha sidii baarta hadda u sheegnay qaarkood u tageen inta la wada tago dhulka la xoreeyo ee dhammaan shaab dhulka laga saaro. dadka baahi hayso waxa laga yaabaa beeraha warshadaha la sameeyo jidad intaas hadda waa laga muhiimsan yahay. waxa aad haysato hadda ma aha waqti aan inta beer falno aan sugayno waxa ka soo bax, waqti inta warshad dhisna aan sugayno waxa ka soo bax ma aha. waa in dhaqaalaha hadda aan haysano aan isticmaali karno. dhaqaalaha laga dhumaayo muxuu la egaa su'aalaha imaanayso. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ciise Maxamuud Guure iyo gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Dr. Cali Yaasiin Sheekh ayaa ka hadlay qorshaha kobcinta dhaqaalaha. runtii annaga muhiimad gooni ah noo leedahay dakhli aruurinta iyo kobcinta dhaqaalaha. maxaa yeelay waxaan aaminsanahay haddii aan dakhli la aruurinin adeeg lama qaban karo. 3 milyan ee gobolka Banaadir ku noolna mas'uuliyad ayaa naga saaran adeegooda haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir. runtii hortabinteena noogu jirtaa sanadka 2023 ee nagu soo food leh inaan kobcino dakhli aruurinta. dabcan suuqyo badanaa jiro hadda aan laga faa'iideysanin inaan dib u furno. anaga qayb baan ka nahay bangiga dhexe dhaqaalaha Soomaaliya, especially waxaan mas'uul ka nahay qaybta monetary policy-ga. hortabin waxaa noo ah runtii 2023 iyo 2024 laba qodob oo aad muhiim u ah oo aan ka shaqeynayno. shaqooyin badan buu bangiga dhexe qabtaa runtii. markaan kasoo tagno physical agent u nahay wasaaradda maaliyadda iyo dowladda Soomaaliya. shaqooyinka aan qabanno waxaa ugu muhiimsan supervisionka bangiyada ganacsiga. shaqo fiican baa laga qabtay runtii 13 bangi oo shaqo haysta dalkan si fiican ugu adeega muwaadiniinta Soomaaliya oo shaqo fiican ka qabta dhaqaalaha iyo horumarinta oo dadka siiya maxalliga muraabaxa iyo deeman kala siiya. supervisionkooda iyo warqabkooda iyo sidii loo horumarin lahaa systemyada ay isticmaalaan. heer waxaan maraynaa hadda inaan bangiga dhexe oo establish gareeyay program la STB oo qofka muwaadinka u suuro gelinaya in uu lacagtiisa qof ka dirsado bangi A oo u diro bangi B asigoona waxba dhaxmaraynin qof kale uusan ansixinaynin oo si automation uu helayo lacagtiisa bangi kale uu helayo iyadoo yareynayso dhaqdhaqaaqi cash la qaadi lahaa oo meel kale la aadi lahaa. xasan aadan hoos oo agaasimaha guud ee golaha dhaqaalaha qaranka ahna la taliyaha madaxweynaha ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan horumarinta dhaqaalaha dalka. anagu dawladdu waa laba gole iyo golaha isaguna saddexaad oo ah golaha sharci dejinta. marka dhanna waa wada tashto dawlad, dhanna waa shaqada marka leedahay oo way is ilaaliyaan, dhanna waa is kaalmeeyaan oo waa is dheelitiraan. na waxaan diyaar u nahay wasaaradda wixii xisaabtan aanu ku leenahayna haddii alla idmo iyo hay'adaha kale dowladdaba inaanu si hufan oo aanu ula xisaabtanno wixii aan tala ku leenahay oo noo muuqdana inaan u siino. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa sharaxay qorshaha hanaanka maaliyadda ee sanadka 2023. ummad waxaan nahay sabir gaaban oo aan sugi karin oo waxa maalintooda mooyaane aan maalmo kala gaari karin. that's why aanan waxba u beerin oonan muxuu beeritaanka iyo nolosha dheer ee dhowrka sano qaadan karta, 10 sano qaadan karta, 20 sano qaadan karta aanay muxuu ahaayeen waxba noogu ahayn maanta maxaan helayaa kaliya tahay. waxa markaasi dawladnimo inaan helnaayo inaan shilin ku darno
cashuurta kobcinno bay nooga baahan tahay Soomaaliga wuxuu leeyahay haddaadan maanta keenin maxaad qaban doontaa mustaqbalkana waxba qaban maysid haddaadan maanta haynin Soomaaliga haddaadan maanta wixii gaarsiinin berina waxba qaban maysid noloshu sidaas ma aha isbeddel markaynu doonayno noloshu dhaqashay rabtaa sida bini aadamku u koro in ka badan bay koraysaa dowladnimadu in ka dheer bay rabtaa inay weligeed jirtay oo muxuu ahaa generation by generation jiilba jiil isu dhiibay rabtaa Soomaaliga haddaynaan tallaabada kunka mayl ah maanta inaan meel saxa dhigno ayay u baahan tahay oo kunka mayl gaarno Soomaaliga Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho